kulanti wanaagsan daawadayaal garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta oo caawa soo saaray war weyn oo ku saabsan ciidamada la doonayay in la keeno marinka Gaza. qaybta labaad ee barnaamijka ayaynu ku eegi doonaa. jariirada afka dheer ee Israa'iil ka soo baxday ee Haaretz ayaa maqaal ay qortay kaga warantay in Maraykanku uu gebi ahaanba ka xanibay inay Israa'iil wax weerar oo dambe ay ka fuliso iyo howlgalo military marinka Gaza. Netanyahu oo daqiiqadihii la soo dhaafay hadlay ayaa arrintaas beeniyey waxaana la leeyahay arrintan waxa ay tusaaleynaysaa sida loo sii kala fogaanayo iyo xaaladdu meesha ay marayso. madaxweynaha dalka Maraykanka oo Kuala Lumpur ku sugan oo halkaas hadallo ka jeedshay iyo waliba ra'iisul wasaaraha dalkaas Anwar Ibrahimi waa 26 bisha 10 sanadka 2025 khiyaarta sharafta iyo karaamada leh. Let's break it down. MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed. Waxay caan ku tahay adeegga, hufnaanta iyo ammaanada. Kaan iska arag. MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaaladda amal gacmo furan ku soo dhawaada. Haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app. Ku soo dhawaada. وهاجاك داود يا isku soo noqod wanaagsan hadii aynu eegno hadalkan Israa'iil ra'iisul wasaaraheeda ka soo yeeray arrin ka horeysay ayaa jirtay kadib markii jariirada Haaretz ay maqaal dheer ay qortay ayna sheegtay markaas in Israa'iil iyo Maraykanku ay go'aan ku gaareen in uusan Netanyahu weerar dambe u qaadi kara aysan jirinin isla mar ahaantaasna wax allaale iyo wixii howlgalo military Maraykanka oo kay hadii uusan saarinin haba yaraatee tilaabo inaan la qaadanin. maalintii Jimcaha ee markii shalay daraad ahayd markaan idiin soo gudbinay maqaalkii ay qortay jariirada New York Times ee ay markaas kaga faallootay in ay diyaaradaha markaas droneska loo yaqaano ama reconnaissance howlaha reconnaissance fuliya ee waxbaara wax jaajuusa ay dul taagnaayeen marinka Gaza si joogto ah muddo dheer si loo xaqiijiyo labada dhinac midkoodna inuu uusan haba yaraatee ku xadgudbinin heshiiskii la kala saxiixday oo Maraykanku uu aamini waayay Israa'iil sidaas awgeedna uu doonayay markaa diyaaradahaasu in ay Gaza dul heehaabaan. haddaba Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in aysan haba yaraatee jirinin wax shuruudaha oo hor yaala markuu doono iyo goortuu doonana uu weerar qaadi doono Israa'iilna ay ka madax bannaan tahay Maraykanka. arrintan waxay khubaradu ay leeyihiin daawadayaal waxa ay hoga tusaaleynaysaa waxa soo socda iyo sida loo sii kala fogaanayo maadaama Netanyahu lagu khasbay wax uusan doonaynin markii horeba oo ahaa dagaalku inuu sii socdo asaga uu doonayay haatana loo dadbadsaday oo Trump kaliya arrin ku xiran aan ahayn si markaas lobiga Israa'iil uusan markaa Trump eed keliga u saarinina wadamo fara badan oo caalamka ay arrintan saxiixayaal ay ka yihiin sida Qatar, Turkiga, Masar iyo goobjoogayaashii Ingiriiska iyo Faransiiska iyo Jarmalku ay ugu tuweynayeen. haddaba Netanyahu oo tilaabo qaadan military ayaa lagu soo waramayaa waxa ay si toos ah uga hor imaanaysaa markaas heshiiskii uu la galay dowladda dalka Maraykanka taas oo keenaysa markaas iyaga iyo Maraykanku in ay markaas khilaaf horla uu ka dhasho. haatan arrinta goosashada daanta galbeed ayaa aad iyo aad xiisad uga taagan tahay. Maraykankuna mowqif cad ayuu ka istaagay oo markaas saddexda mas'uul ee ugu sarreeya wasiirka madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo madaxweyne ku-xigeenkuba si bareer oo cad ayay u sheegeen Israa'iil inaysan goosan karinin raallina aysan ka ahaan karinin Maraykanku kana noqon doonanin in ay daanta galbeed ay goostaan. taas oo riyadii kooxda xagjirka ee markaa xukuumadda Israa'iil ku jirta gebi ahaanba soo gabagabeynaysa. Gazana Falastiiniyiinta ayaa loo dhisayaa daanta galbeedna ma gooysan kartaan. arrintaas laba arrimood oo waaweyn oo markaa jab ku ah xukuumadda haatan coalitionka weeye ayaa la leeyahay. wixii kusoo kordha daawadayaal waynu arki doonaa inta aanan Donald Trump aynan aadinin aynu isla eegna haddaba dhinaca kale warka ka soo baxay garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa Falastiiniyiinta. Maxamed al-Hindi oo ah markaas ku-xigeenka
dhinaca ammaanka ee dhaqdhaqaaqa hubaysan ee ururka falastiiniyiinta ayaa waxa uu sheegay isagoo waraysi bixiyey maanta oo axada ayuu wuxuu sheegay marka ugu horeysa waxa uu yiri ciidamada la keenaya Gaza waa inay shuruudahan soo socda ay fuliyaan waa marka koowaad inay UN-ta ka haystaan mandate oo haddaysan mandate UN-ta ka haysanin viable ma aragna ayuu leeyahay waa hadalkiisa garo mandate-kaas waxa uu yiri waxa ay sababaysaa ayuu yiri in ay ka hor timaado damaca Donald Trump oo ah markaas isagu ciduu doono inuu keeno wuxuu doono uu sameeyaa isagana ay ka amar qaataan sidaa awgeed ma doonayna ayuu yiri waxaynu doonaynaa ciidamadaasu inay noqdaan kuwa markaas UN-ta hoos yimaada oo mandate-kooda iyo waxa ay qabanayaan ay ku cad yihiin qaraarada qaramada midoobay sida horeyba u dhacday ciidamada la geeyey ee Lebanon iyo Israa'iil la dhex dhigay tan iyo 1978 xilligii Israa'iil withdrawalka ay ka sameynaysay Lebanon sidaas awgeedna ciidamadaanu inay noqdaan hadalkan dhageyso ciidamadaanu in ay noqdaan ciidamo labada dhinac kala dhex jooga oo xadgudub iyo weerar iyo carqalad dhinaca ammaanka inaysan dhicinin xaqiijiya laakiin ma doonayna ayuu yiri code and code ma doonayna inay noqdaan kuwa Gaza ayaga occupy ka noqda oo haysta Gaza haysta iyo kuwa booliis ka noqda midna ma rabna inay noqdaan so aragtidiisu waxa ay tahay iyo hadalkiisu waxa uu daaran yahay markaad si fiican u qiixdid in aysan markaa doonaynin ciidamo Maraykanka kaliya ka amar qaata oo ayagu markaa waxay doonaan halkaa ka fuliya wuxuu leeyahay qaramada midoobay waa inay hoos yimaadaan isla mar ahaantaasna aysan noqonin kuwa nolosha iyo ammaanka maalinlaha ee Gaza suga laakiin labada ciidan garabka hubaysan ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil kala dhex jooga oo qaramada midoobay u soo ribood gareeya arrintan xalista kale oo ay leedahay waxa ay tahay haddii loo arka ayaa la leeyahay ciidamada wadamada muslimiinta ka imaanaya kuwa danta Maraykanka iyo Israa'iil wada oo garabka hubaysan ee Falastiiniyiinta la dagaalamaya kuwaas oo markaa carqalad hor leh halkaas ay ka bilaaban karto iyo dagaal markaas dhexdooda waana waxyaalaha la doonaya in laga fogaado haddaba Maxamed Al-Hindi hadalkiisa ayaa kusoo beegmaya xilli ilaa iyo haatan arrintaas aan xal loo haynin laakiin ay jiraan wada hadallo fara badan oo Maraykanka iyo qaramada midoobay u dhexeeya sida uu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Marco Rubio maalmihii la soo dhaafay laakiin weli lama finalize garaynin lama soo gabagabaynin taasina waxa ay sababaysaa ayaa leeyahay dib u dhac inuu yimaado xilli Maraykanka madaxweynaheeda Donald Trump uu shalayta sheegay in ay ciidamadii diyaar yihiin khatarna iyadoo ay heegan la tahay inay ciidan ay markaa kusoo biiriso imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa diidan ilaa iyo haatan inay ka qayb qaataan dhinaca dib u dhiska marinka Gaza iyo dhinaca contributionka ciidamada intaba inta Xamaas ay joogaan marinka Gaza meesha dowladda Maraykanku ay sheegtay Trump iyo weliba madaxweyne ku-xigeenku labaduba ay sheegeen inaysan waqti cayiman aysan u qabanaynin ururka Xamaas haba yaraatee oo markaas arrintu aysan weli halkaas gaaraynin si kastaba daawadayaal ha ahaato ciidamadaas Israa'iil waxa ay leedahay cidda imaanaysa annaga ayaa loo daba fariisanayaa waxaana la isweydiinayaa sababta loogu daba fariisanayaa waa maxay maadaama Gaza ay dalka Falastiin la yiraahdo ay ka tirsan tahay maxaa laga weydiinayaa mustaqbalka iyo ayatiinka Falastiin wax looga weydiinayaa waa dood taagan weeye oo hortaagan madax banaanidooda iyo geedi socodka iyo meesha ay tiigsanayaan dhinaca kalena waxay Israa'iil ay ku doonaysaa cidda timaada inaysan ammaankooda ay khalkhal aysan gelinin isku soo duuba waxaa leeyahay Netanyahu waxa uu diidan yahay ciidamada dowladda dalka Turkiga inay halkaas yimaadaan ujeedada ka dambaysa waa intaas oo keliya ciidamadaas inaan la ogolaanin waxaana suurtagal ayaa leeyahay kuwa khatarna inay diidaan arrintaas oo asaga iyo Trump mar kale isku horkeenaysa maxaa yeelay dhagaha hadda Trump uu maqla ayaa la leeyahay waa Erdogan iyo amiirka dowladda dalka Qatar oo uu ka dhex arkay dantiisa dhaqaale iyo tan siyaasadeed labadaba meesha Netanyahu waqtigiisii uu sii dhacayo gudaha Israa'iilna daraasadii u dambeysay ee la soo saaray la sheegay boqolkiiba lagu xaqiijiyay boqolkiiba 52 inay rabaan inay cawda u jiraan inuusan soo sharaxinin
doorashadana uusan ka qaybgelinin. magaalada Kuala Lumpur ayaa lagu kala saxiixday heshiiska markaas u dhexeeya dowladda dalka Cambodia iyo Thailand oo dagaal ba'an uu ka dhexeeyey. ra-iisul wasaaraha dalka Malaysia Anwar Ibrahimna uu ka odeeyey, Trumpna uu qeyb weyn u ka ahaa, ayaa halkaa loogu wanqalay. mar kale Trump waxaa muuqata in uu markaas buugka nabadda iyo isku soo dhoweynta iyo xasiloonida uu yeelanayo, waxaana uu doonayaa mar uun inuu gacanta ku dhigo Nobel Peace Prize bilada la yiraahdo ee la bixiyo oo sanadka 2025 si ba'an uu ugu guuldaraystay, balse uu habeen iyo maalin afka ku hayo dagaalo ayaan xaliyay. kan Gaza ilaa iyo haatan xabad joojin ku meel gaara ayaa ka dhacday, laakiin heshiis rasmiya lama gaarinin. dagaalkii Ruushka iyo Ukraine hadduuba cirka isku sii shareeraya. dagaalka Pakistan iyo dowladda dalka India ayaa joojiyay ayuu leeyahay sidoo kale bishii May ee soo dhaaftay, oo labadoodaba ugu hanjabay taarif ama canshuur inuu dul dhigi doono haddii ay markaa dagaalka ay sii wadaan. marka dagaal heshiis laga gaaray maahane dagaal lagu khasbay ayay ahaayeen inay joojiyaan, oo labaduba ay joojiyaan. Pakistan ayaana aad iyo aad arrintaas ogaga faa'iiday dhinacyo fara badan. khiyaarta sharafta iyo kalaamadana meel kastoo dunida ka joogtaan, wararka caawa galabtaan idhaahde waanu kala xili duwanahay. xilligan haatan lasoo gaaraya ee ugu waaweyn sidaas ayay sheegayaan. wax allaaliya wixii wararka kusoo kordha waa idinla socodsiin doonaa. caawa waxaa jira injineer Axmed Abdidoon, falanqeeyaha weyn ee siyaasadda caalamka oo aan muddo aanan ishelinin, ayaa idinku soo foodla haddii ilaha yiraahdo, oo xog fara badan lala wadaagi doono. soo dhawaada.